tan iyo markii loo doortay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxa uu maamulkiisa u waday sidii waddankaasi looga saar lahaa dadka aan sharciga haysan. Tilaabadaasi waxaa ka hor yimid maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka oo laashay ama si ku meel gaar ah u laashay in dadka aan haysan sharciga laga saaro waddanka Mareykanka. gaar ahaan bilihii ugu dambeysay waxa uu Mareykanku waddankaasi ka saaray dad badan oo ka soo jeeda qaaradda Latin America oo waddanka Venezuela uu qayb ka yahay. dadkaasi waxa qaarkood ay ku jireen xabsiyada waddanka Mareykanka, qaarkood dambiye ayaa lagu soo oogay, qaar badan oo kamidana wadamadooda ayaa dib lagu celiyay, qaar badanna wali waxa ay ku jiraan xabsiyada waddanka Mareykanka. haddaba madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa uu la hadlay warbaahinta waddanka Mareykanka isagoo ku sugan xafiiskiisa Oval, waxaana uu sheegay in dadka sharciga aan haysan inaysan xaq u lahayn in maxkamad la soo taago, isagoo ku adkaystay in maamulkiisa uu awood u leeyahay inuu musaafiriyo iyagoo aan la horgeyn wax maxkamada. waxay ahaayeen hadaladii ugu dambeysay ee madaxweyne Trump uu kaga soo horjeedo garsoorka ee waddanka Mareykanka oo isagoo hor istaagay awoodiisa musaafirinta. Trump hadda wuxuu rabaa inuu wada shaqeyn ka helo maxkamadaha ku yaala waddanka Mareykanka si uu uga dhaadhiciyo qorshihiisa ku aadan in uu waddankaasi ka saaro kumanaan ka mid ah dadka aan sharciga haysan. waxaana maamulka Trump uu sheegay inay hayaan kumanaan kun oo qof oo iyagu diyaar u ah inay ka baxaan waddanka Mareykanka si ay wadamadooda dib ugu laabtaan. madaxweynaha waddanka Mareykanka sababta uu uga soo horjeedo in maxkamad la hor keeno dadka muhaajiriinta ee sharci la'aanta ku jooga waddanka Mareykanka waxa uu aaminsan yahay in ay qaadan karto muddo ka badan 2 sano in dadkaasi maxkamad la hor keeno oo maxkamaduhu ay go'aamiyaan in la musaafiriyo. waxaana uu rabaa in si degdeg ah dadkaasi looga saaro waddanka Mareykanka. Mr. Trump ayaa bishii hore waxa uu soo saaray bayaan uu ugu yeeriyo sharciga cadowga shisheeye. waxa uu doonayaa in sharcigaasi uu adeegsado sidii dad badan oo ku sugan waddanka Mareykanka uu dibadda uga saari lahaa. waxaana uu yiri dadkaasi waxa ku jira kuwa badan oo ka shaqeeya arrimo ay kamid yihiin daroogada, kuwa dhimar kala iyo kuwa badan oo dalka Mareykanka dambiye ka geystay. haddaba dadka Soomaaliyeed ee sharci la'aanta ugu nool waddanka Mareykanka ayaa iyagu waxa ay sheegayaan inaanay jirin wax walwala oo ballaaran oo ay ka qabaan go'aanada Trump uu soo saaray. Soomaalida waddankaasi ku nool waxay u badan yihiin dad shaqaysta oo sharciyada waddankaasi dhinaca shaqada aad ugu taxalluqa. wayna yar yihiin dad waddankaasi sharci la'aan ku jooga oo xabsiyada ku jira ama dambiye loo haysto. inta badan waxay u badan yihiin dad aad isaga ilaaliya dambiyada inay ku galaan waddankaasi Mareykanka.